بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هيك قارئة من البنتات عالمك كجوكتان وولاشين وماليش ويدنك سلامي سخنانتا مسلمك waxay dhanay walaalahayga qaaliga ah ku soo dhawaada channelkayga waa walaashin oo idin dhahayso welcome to my channel mar walba sida quruxda badan ay ila socotaan waa idinkaga mahad celinaya marnaba kama daalayna idin mahad celiyo walaalaha igu cusubna waxaan leeyahay ku soo dhawaada walaashin channelkeeda waxaad ka faa'iidi doontaan insha Allah ana waxba idin ka faa'iidi doona subscribe ka meesha yaro guduudan taabo gambaleelka furo sida notification ka wax alla waxaan soo geliyo kugu soo dhaca meesha gambaleelka saddex gambaleel ayaa ku soo dhacaysa gambaleelka ugu koreeya ayaa dhilin furanaysa biidmillah video walbeenta aan soo dhigo wax walbeenta uu yahay ma wacyi gelin ha ahaado ama cunno karis ha ahaado ama wada hadal ha noqoto ama duca ha noqoto sida ayaad ula socon doontaa biidmillah walaalahayga qaaliga ah waxaan leeyahay maantana waxaan rabaa saddex shay ayaan rabaa inaan timirtan ku waxeeyo waa timir aan lafti ka soo dhilay waxay la tahay qof walba inuu timirta gurigiisa ay u taalo laakiin se wax walba markii la qurxiyo oo la sameeyo ay aad u soo baxaan marka halkan waxaan ku haystaa waa loos wax yar oo loos ah waa soo mara ayaan u goglay looski markaan dhilay qolofti ka fiiqay mara ayaan u goglay waan yara tumay zaa'idna uma jajabinin laakiin se sidaas ayaan ka dhigay waa uu finjilmaday sida adoo galay tumay camal waxaan halkan ku haystaa waa sisinta waan dhaqay waan nadiifiyey waa soo dubay adi waa 4 qaado sisin ah iyo waa timir oo 1 kiilo camal ah waa kiilo timir camal ah qiyaasta waa timir kiilo camal ah waxaan halkan kala ku haystaa waa subag ari saddexdaas shay ayaan rabaa inaan timirtan biidmillah soo dhexgeliyo timirta waa soo dhilay subaga ayaan ku xashaaya marka ugu horeysa timirta meesha waan soo nadiifsaday si aan ugu xasho timirta saddexdaas shay ayaan timirtaas ku sameynayaa aad ayaan u soo qurxin doonaa biidmillah waa arki doontaan sida uu qurxiyo ugu horeyn timirta ayaan xashanaynaa timirta wax walbeenta waa ka soo bixbixiyay haddii aad aragtid wax dib ugu jirjiro waa ka guraysaa saxanka ka gedinaya dhulka ku daadsanaya waayo saxanka way ka sabsaybaxanaysaa xoog ayay u baahan tahay laakiin se wax walbeenta markay indhaha soo jeetaan ayay qurux badan yihiin wax walbeenta waxaan jeclahay gabdhaha Soomaaliyeed walaalahayga Soomaaliyeed hooyooyinkeena in iska quruxsano xataa ilmaha ay ku cunayaan wax qurux badan markay yihiin qof walbeenta bini aadan ah ama ayaa ka galaya waa xashaysaa sidii adigoo chapati xashaaya ama ceesh wax le adigoo xashaaya camal ka dhigaysaa waan naqaanaa sida timirta loo xashto waayo oodka aan ku darsanaa guryo badan ayaa inta la xasho baaquli lagu daboolaa laakiin se maantayto tii ayaan wax kale inta ku dardarayaa biidmillah marka timirtiisa dhexgeliyo waxaan soo qaadanayaa looski oo dhan ayaan ku gediyey looska waxaan rabaa inuu dhexda ka galo looska uu kasoo firfirdhanaa laakiinse insha Allah waa gelinaynaa looska oo dhan dhexda aan ka gelinaynaa halkaasaa looska markuu dhexda ka galay xalwad camal ayay noqotay waxaa sameynayaa marka hadda waa soo dhuubayaa waa wax yar oo wax badan ka qaadanayna looska qarashkiisa waa ogtihiin inta uu yahay 20 shilin dadka wadanka jooga ku soo heli kartaa meel walba inta aad joogtid looska waa loos raqiis ah sisintana soo daaribtid xataa rubac iska soo gado kala reebo 3 qaado bas ka cabiro timirtaada inta ay dhan tahay ayay kuugu xiran tahay soo waxa sameynayaa sisintiisaas ayaan ugu daadinayaa dhulka ku daadinayaa sisinta dhan dibiga ugama goynaayo waayo waa wax yariis ah wax yariiska
ayaan rabaa si qurux badan inay walaalahayga qaaliga uga faa'iidaan. sisinta waa soo dubaysaa si carafteeda dhan ay usoo baxdo. ugu dheeraaday 2 cabaa ka kala dhigayaa. saas u marmarinayaa si uu sisintii iyo looskii iyo wixii oo dhan ay isku soo dhex galaan. marka ugu horeyso wax yar soo qaado tijaabi. waxa marka horeento wax weyn ha ku tijaabinin. midna qofna waxa asagoo yaqaan ma dhasho qof walba inta waxa uu tijaabiyaa maalinta koowaad ay ka halawdo insha Allah maalin labaadka ay ku saxmanaysaa. laakiin tan shaqo aad u dhib badan inaysan ahayn ayaan jeclahay. taas way dhex gashay sisintii iyo looskii iyo wixii dhan. tan ayaa haddana sidaas u fidinayaa. haddaa aragtid inay kugu dheeraatay markaas saas u fidisid waa jaraysaa. jabka kale inta aad jiratid meel ayaa dhiganaysaa. I hope in si fiican videoga looga jeedo sidee looski iyo sisintii labadiiba u dhex gashay. waayo wax subag ay leedahay. subaga markuu leeyahay wuu ku dhex galayaa. maasha Allah waxaan usoo qaadanayaa foil ama sida u taqaanid bacdaas. qalada ugu soo fiican bacdaas ku duuduubayaa. هذا فويل كهيسمين بعد عمده waa ku duuban kartaa. saas ayaa ugu duubaya. waxaan ku tusinayaa iyadana hadda foil kahaysan bacda cad bacdan sida iyadana ugu duuban kartid oo uga maarman kartid. wixii markaas jikadaada ku yaala ayaad ku samaysan kartaa. ma aha mش daruuri inaa waxaas ayaga ah raadisid. bacdan soo fujisanayaa. iyada wax kala furdhow ma jiraan. wax markaas iyada ah heli kartid ayaa waxaad ku quruxsan kartaa. bacdaanna markaa ku xirtid waa sidaas. markaa boilka ku xirtidna waa sidaas. soo labadooda midkii markaas ayada ah ku dhow ayaad ku xiranaysaa. waxaan la aadayaa freezerka. fridge-ka ayaan gelinayaa. waxaan fridge-ka u daynayaa
qadar 40 daqiiqo ah si ay isku qabsato ay usoo resti garayso oo ku soo noqon doona 40kaas daqiiqo ka bacdi sida ay noqon doonto biidmillaah. ما شاء الله وكسو بحيي واتاسا ويسو قبودي waxaa u qaboojisanaysaa mindida markaa ku goynaysid si ay si qurux badan ugu go'do. haddaad time badan haysatid waa u dayn kartaa ilaa 2 saacadood ilaa ay dhagax ka noqoto, laakiinse aniga casriya ayaa rabaa inaan u diyaarsado, time badan uma haynin. waa soo jarjarayaa sidaasaa u jarjarayaa. I hope in loo jeedo. waxaan halkan kusoo diyaarsaday waa xanshiyaha siriirka oo loogu talagalay qumbaha macmacaanada inaad saas u saaratid. midii kala soo fiiqaya isi fiiqaya waxaad waaye ilmahayga ila joogaan maasha allah weekend waxaan rabaa inay casriyo yar oo qurux badan ooga soo tuuro. kulligeed saasa usoo jarjaranaysaa markaa kala dhaadheeraanayso markay kuusoo qaboodo timirta. that's why waa waxa u qaboojisanayno. freezerka waxaa gelinaysaa qaybta hilibka iyo qaybtaasaa gashanaysaa 1 saac 40 daqiiqo 1 saac iyo bar adigu intii markaas ayada ah time u heli kartid ayaa ku gashanaysaa. soo wada jarjartay qaarka hadartaan la cuni rabo waxaan rabaa inaan halkaan saas ugu safo. qaaraa weyn qaaraa yar gacanta bini'aadamka isma la eka. xanshidan haddaa u baahan tahay waxaa laga helaa meelaha macmacaanada downtownka meelahaasaa lagu gadaa ayagoo tiro badan 400 xabo waxaad kusoo helaysaa 200 shilin ama $2. qaarka kale inta oo hadartaan la cunaynin baaquligaas dabool kale ayaan saas ugu shubanayaa. dayninka iska saaranaysaa ilmaha markay soo maraan afka iska gashanayaan. baaquligaas dabool kale ayaa saas ugu shubanayaa. gaxwa uu soo karinayaa haddana miiska ayaan aadaynaa. maasha allah waa taasaa sidaa quruxda badan ayay kusoo baxday timirtii. waxaa yar kaamirada hoos usoo dhiganayaa afwan. halkaasaa gaxwa uu soo kariyey gaxwa madow ah qofkii cadaysa raba maasha allah casraa la adimaya alxaq min alsadaq. qaxwa madow uu soo karsaday qofkii sokor raba sokor waatana sokor uu ku darsanaya. timirtiina waa taasaa walaalahayga khaaliga ah yaa farkeetadaas ku soo suray sidaa quruxda badan ayay noo eg tahay. macaankeedana lagama sheekayn karo dee timir ma laydinkaga sheekaynayo. caraftiis sisinta ayaa zaaid ooga soo uraysa lowskii dhanba kama soo uraayo. waxaa meesha carafteeda qaadatay sisintii dubneyd. gaxwahaaga u karso sidaa quruxda badan u samayso wixii kaleentana oo soo haray
نواكاسا باخوليغا سيداس ugu daboolo miiska iska saaro ya wax walba inta wixii aragooda ku deeqda ayaa oontooda ku deeqda bay ay dhihi jirtay waa kaasa maasha Allah sida quruxda badan ayaa uga soo tuuray walaalahayga qaaliga ah waa walaashin uma alisho idin dhahaysa markuu videogayga ku soo gaaro bil ihsaanak like subscribe share walaalkaaga kale inta la wadaag comment dhiirigelin ah waa xaqiina biidnillah waxaan idinkaga tagaya dadaal wanaagsan insha Allah biidnillah kareem iyana wax ka faa'iidi doontaan waa walaashin uma alisho idin dhahaysa jazaakumullahu khayr sida quruxda badan channelkayga ula socotaan walaalaha igu cusubna waxaan leeyahay welcome to my channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akhwani.